qiimeyntu markaa waxay ka soo bilaabmi doontaa oo soo sameynaya soo habeynaya wuxuu duruuf lahaa ma xog lahaa bada iskuulka haya iskuulkaas laga duulaya marka laga soo bilaabo fasalka KG ilaa fasalka form 3 fasalka saddexaad dugsiyada sare dugsiyadu waxay xogta ardayda u soo gudbinayaan xafiiska imtixaanaadka qaranka si loo hubiyo loona soo saaro liiskii dhamaystirnaa ee ardaydu fasal uga gudbay shuruudaha markaa waxa weeye hadaba waxa ay qiimeyntu ansaxaysaa marka ardaygu buuxiyo shuruudahan hoos ku qoran kow inuu dugsiga dhiganayay sanadkii u dambeeyay iskuulka inta soo qiimeynaya waa inuu yahay ardaygu inuu arday dhiganayay sanadkii ugu dambeeyay iskuulka yahay laba inuu xiisadaha qaatay sanadka ugu dambeeyay loo qiimeynayo boqolkiiba 90% inuu xiisadii dugsiga ka baxayay aw qaatay ardaygaasi waa inuu markaa annagana loo soo gudbinayo waa ina wixii xuquuq lagu lahaa iskuulka uu ku lahaa hadday buug tahay hadday tahay wixii fiiye iskuulka ku lahaa iyaga kolkay soo kala dhameystaan ayuu shuruudihii ay ka mid tahay inuu buuxiyay iyadoo si gaar ah loo eegayo ardayda danyarta ah dugsiyadu waa in ay xogta ku soo gudbiyaan inta u dhaxaysa 1 Juun ilaa 15 Juun in hawshaasi inaga soo gabagabowdo ayaan rabnaa haduu ilaahay idhaa waxa waalidka iyo ardaydaba la farayaa in fiiga waxa lagu bixinayaa nidaamka yaani la raaci karo oo ka mid tahay saadka iyo dahab iyo account xisaabeedka dugsiyada sidii yaani macaamilada midkii kamid ee lagu wada macaamilayo waxa ka isla garanay kulli ama waalidkeeda waxa ka wada xiriiri la telefoonada lagu wada hadlayaa iyo dugsiga marka wasaaradda waxbarashadu iyadoo duruufaha jira tixgelinayso xaaladan uu keenay xanuunkan aafada aynu ilaahay ka baryayno inuu naga dulqaado dhammaan wadamada islaamka iyo wadamada kaleba inuu ilaahay ka dulqaado mar hadii si fudud lagu kala qaadayo bahalkan marka waxa jiray wasaaradda waxbarashadu waxay saartay guddi farsamo oo ka soo tala bixisa sida bal qiimeyn loo sameyn karo mar hadii aan ardaydii la isu keeni karin imtixaan aan laga qaadi karin marka ardayda waxa ka reeban ardayda dugsiga sare ee fasalka afraad ka baxaya kuwaas sidoo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku cadeeyay waxa la yiraahdo waxa laga qaadayaa imtixaan kaas oo 27 bisha 6 la gali doono sidoo qorshaha xafiiska imtixaanaadku yahay markii la isla rogrogay guddidii farsamo waxay soo saareen go'aamada waxay noo akhri doonaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka anigoo ku hadlaya magaca dugsiyada gaarka ah waxa aanu ballan qaadaynaa insha Allah taala inaanu fulin doono hadii Ilaahay yiraahdo go'aamada la isla qaatay ee wasaarad iyo maamulayaashii iskuulada dhammaantood public iyo private intaba go'aanada la isla qaatay oo run ahaantii go'aano dhaxalgal ah ayaanu ballan qaadaynaa inaanu fulino dhinac walba waa laga eegay caruurteena loo daneeyay macallinkii baa loo daneeyay waalidkii baa dantiisii la eegay marka de waxa laga fursan waayay oo khasab noqotay maadaama maanta imtixaan la qaadi karaa aanu jirin in booskii imtixaanka la geliyo qiimeyntana xogtii sida gudoomiyuhu sheegay waxay ka imanaysaa dugsiyada ayay ka imanaysaa ka soo bilaabmaysaa dugsigii baa soo gudbinaya isaga xogtii oo dhan haya dabeedna wax dhameystiran dhaatadii marka loo soo gudbiyo xafiiska imtixaanaadka isaguna wuxuu soo saari doonaa liisaskii iyo natiijadii kama dambayska ahayd waxa la oran doonaa intaasina way gudbeen oo fasal hebel ayay u gudbeen intaasina may gudbin sida madaxdii iga horeysay ay sheegeen anigoo ka wakiila dugsiyada dawladda waxaanu horta marka ugu horeysa soo dhaweynaynaa go'aankan maanta la wada gaaray ee ah qiimeynta in dugsiyada la qiimeeyo ardayda loo qiimeeyo xafiis dugsiyada imtixaankii naqliga ahaa qiimeyntaas oo ka soo bilaabmaysa dugsiyada oo iskuul waliba ama arday waliba oo iyo waalid waliba uu la xiriirayo dugsigiisii taasaanu saa ku qaadanay waana soo dhaweynaynaa madaxda wasaaradana iyo xafiiska imtixaanaadkana waa ugu mahadnaqaynaa